nin ku dhex dhuuntay tartanka feerka ee dumarka oo hal feer ciyaartii kaga saaray gabadhii kale ee la tartamaysay. Intaan u guda galin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato, waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Feeryahanada Imaan Khaliif lagu magacaabo ee jirkeeda bedeshay ee u dhalatay dalka Algeria ayaa daqiiqadihii ugu yaraa ciyaarta kaga saartay la tartamihii iyada kasoo horjeeday oo kasoo jeeda dalka Talyaaniga laguna magacaabo Angela. Feeryahanadan lagu magacaabo Imaan Khaliif oo horey nin u ahaan jirtay ayaa feer ku boobsiisay la tartamihii iyada kasoo horjeeday, taas oo Angela ku qasabtay in ay si degdeg ah ciyaarta uga baxdo, waxayna ciyaarta isku dhiibtay 46 ilbiriqsi oo kaliya. Angela oo ah gabar kasoo jeeda dalka Talyaaniga ayaa waxay daqiiqadihii ugu yaraa uga baxday garoonka, waxayna ku jirtay 46 ilbiriqsi oo kaliya. Waxa ay sheegtay in feer degdeg ah uu ku dhacay dhanka sankana uu feerkaasi kaga dhacay. Waxa ay garoonka ka baxday iyada oo ooyeysa. Waxa ay sheegtay in weligeed aysan la tartamin qof sidan oo kale ah. Waxa ay sheegtay in ay hore ka dareentay in qofka la tartamaya uusan ahayn dumar oo uu yahay rag. Arrintan ayaa waxaa muran badan ka dhaliyay saxaafadda caalamka, waxayna guddiga tartanka Olombikada adduunka ku eedeeyeen in ay isku ballamiyeen laba qof aan isku xoog ahayn. Waxa ay sheegeen in ay isku ballamiyeen qof horey nin u ahaan jiray oo haysta awooddii raganimada ee Ilaahay markii hore uu u abuuray, iyo qof dumar ah oo doonaysay in ay la tartamto ama ay la feertanto qof dumar sideeda oo kale ah. Imaan Khaliif hadda waa ninkii dumarka iska dhigay ee ku dhex dhuuntay dumarka si uu ula feertamo. Waxaa horey loogu diiday tartamo caalami ah oo adduunka ka dhacay. Sababta loogu diidayna waxaa lagu sheegay in laga baqayay in ay dhibaato u gaarsiiso dumarka kale ee kasoo horjeeda, maadaama iyada asliyadeeda aysan ahayn dumar oo ay ahayd markii hore rag. Ragga iska dhigaya dumarka ayaa adduunkii hadda kusoo badanaya. Meel walba ha joogaan ragga waxay hadda qaarkood ku dadaalayaan sidii ay dumar isaga dhigi lahaayeen. Bal adiga sheeg bal waxa ay ka faa'iidayaan. Ninkan hadda lagu magacaabo Imaan Khaliif raganimadii uu Ilaahay u abuuray ayuuba ku qurux badnaa, oo hadda dumarna ma uusan gaarin, raganimadiina waa uu ka tagay oo meel dhexe ayuu hadda ku jira. Ma waxaan hadda ku xisaabinaa nin mise waxaan ku xisaabinaa qof dumar ah? Adduunkii halkaasi ayuu marayaa oo raggii qaarkood waxay u soo dhigteen in ay dumarka la xirtaan baatayaasha. Bal daawade dhanka commentiga waxaad noogu reebtaa ra'yigaaga ku saabsan sida ay sheekadani kula tahay haddii aad akhrisay wargeysyada adduunka ama aad daawatay ciyaartii maanta dhex martay labadaasi dumar ah. Wax kale oo aan ku tilmaamno ma jirtee, maadaama qofkan isaga uu doortay in uu iska dhigo dumar. Sidee u aragtaa adigan ciyaartan dhex martay Imaan Khaliif iyo Angela oo Imaan ay badisay? Nin ku dhex dhuuntay tartanka feerka ee dumarka oo hal feer ciyaartii kaga saaray gabadhii kale ee la tartamaysay. Intaan u guda galin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato, waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Feeryahanada Imaan Khaliif lagu magacaabo ee jirkeeda bedeshay ee u dhalatay dalka Algeria ayaa daqiiqadihii ugu yaraa ciyaarta kaga saartay la tartamihii iyada kasoo horjeeday oo kasoo jeeda dalka Talyaaniga laguna magacaabo Angela. Feeryahanadan lagu magacaabo Imaan Khaliif oo horey nin u ahaan jirtay ayaa feer ku boobsiisay la tartamihii iyada kasoo horjeeday, taas oo Angela ku qasabtay in ay si degdeg ah ciyaarta uga baxdo, waxayna ciyaarta isku dhiibtay 46 ilbiriqsi oo kaliya. Angela oo ah gabar kasoo jeeda dalka Talyaaniga ayaa waxay daqiiqadihii ugu yaraa uga baxday garoonka, waxayna ku jirtay 46 ilbiriqsi oo kaliya. Waxa ay sheegtay in feer degdeg ah uu ku dhacay dhanka sankana uu feerkaasi kaga dhacay. Waxa ay garoonka ka baxday iyada oo ooyeysa. Waxa ay sheegtay in weligeed aysan la tartamin qof sidan oo kale ah. Waxa ay sheegtay in ay hore ka dareentay in qofka la tartamaya uusan ahayn dumar oo uu yahay rag. Arrintan ayaa waxaa muran badan ka dhaliyay saxaafadda caalamka, waxayna guddiga tartanka Olombikada adduunka ku eedeeyeen in ay isku ballamiyeen laba qof aan isku xoog ahayn. Waxa ay sheegeen in ay isku ballamiyeen qof horey nin u ahaan jiray oo haysta awooddii raganimada ee Ilaahay markii hore uu u abuuray, iyo qof dumar ah oo doonaysay in ay la tartamto ama ay la feertanto qof dumar sideeda oo kale ah. Imaan Khaliif hadda waa ninkii dumarka iska dhigay ee ku dhex dhuuntay dumarka si uu ula feertamo. Waxaa horey loogu diiday tartamo caalami ah oo adduunka ka dhacay. Sababta loogu diidayna waxaa lagu sheegay
in laga baqayay in ay dhibaato u gaarsiiso dumarka kale ee kasoo horjeeda maadaama iyada asliyadeeda aysan ahayn dumar oo ay ahayd markii hore ragga iska dhigaya dumarka ayaa adduunkii hadda kusoo badanaya meel walba ha joogaan ragga waxay hadda qaarkood ku dadaalayaan sidii ay dumar isaga dhigi lahaayeen bal adiga sheeg bal waxa ay ka faa'iidayaan ninkan hadda lagu magacaabo Imaan Khalifa raganimadii uu Ilaahay u abuuray ayuu ku qurux badnaa oo hadda dumarna ma uusan gaarin raganimadiina waa uu ka tagay oo meel dhexe ayuu hadda ku jira waxaan hadda ku xisaabinaa nin waxaan ku xisaabinaa qof dumar ah adduunkii halkaas ayuu marayaa oo raggii qaarkood waxay u soo dhigteen in ay dumar kala xirtaan baatayaasha bal daawade dhanka commentiga waxaad noogu reebtaa ra'yigaaga ku saabsan sida ay sheekadani kula tahay haddii aad akhrisay wargeysida adduunka ama aad daawatay ciyaartii maanta dhex martay labadaasi dumar ah wax kale oo aan ku tilmaamno ma jirtee maadaama qofkan isaga uu doortay in uu iska dhigo dumar sidee u aragtaa adigan ciyaartan dhex martay Imaan Khalifa iyo Anjala oo Imaan ay badisay